waad salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba dowladda Djibouti waxay sheegtay in dalkii lagu soo duulay in terrorist yimiday in nabadgelyadii halis ku jirto in boorasha iyo saldhigyada ciidamada iyo isgoysyada iyo meelaha muhiimka ee dowladda la ilaaliyo maadaama ay sirdoonku heleen sir oranaysa in dalkii lagu soo duulay marka Djibouti hadii lagu soo duulay dad kale uma imanaye cadow kula walaalaa jira wixii aan ka hadli jiray baa jira waa waqti dambe markan vigilant ay noqonayso Djibouti ee diyaar garoobayso waa waqti dambe waa lagu soo duulay mar hore ayaa lagu soo duulay dad adigu aad soo dhawaysanayso ayaa dawladnimadaada nacab waxay nacab yihiin Afrika dhowran ma naciisa inuu dawlad noqdo iyaguna sida maxaan dawladu noqon weyday xasad baa jira xumaan baa jirta idinkuna waa dayalsanaysaan marka anigu maanta waxaan soo jeedinayaa talo Soomaalina hay maqasho madaxweyne Ismaaciil Umar Geelow wadanka qarannimada markay gaadho maaha flexibility looma baahna markay qarannimo gaadho waxa loo baahan yahay solid waxa loo baahan yahay go'aan adag oo dalka ka farxiya laakiin aan cadawga ka farxin oo wadnaha jara anigu waxaan ka codsanayaa Soomaalina hayna maqasho talada dalka inaad aniga igu wareejiso inaan anigu madaxweyne noqdo oo dalkani gacanta ku qabto talada zaad igu wareejiso oo 4 sano madaxweyne ahaado oo aan mishaar ka rabin oo guri ka rabin laakiin dalka u shaqeeyo aqligeedii aqoonteedii garashadeedii garaadkeedii fikirkeedii iyo dulqaadkeedii inta waan leh haddii ay taas suura gali weydo oo sameeyni weydo waxaan rabaa inaad iga dhigto wasiirka arrimaha gudaha waayo dalka ayaa ii baahan aniga inaan badbaadiyo dalka ayaa ii baahan waa serious waxaan ku weydiinayaa dalka ayaa ii baahan ciidda ii baahan calanka ii baahan inuu nabad ahaado dalku aniga ayuu ii baahan yahay wasiirka arrimaha gudaha oo reerka anigu aan ka soo jeeda ay leeyihiin baan rabaa inaad igu wareejiso haddana madaxtinimada igu wareejinay waayo waa lagaba maarmaan talada in lagu wadaagay cadow kula walaalaa jira kuwa ku soo duulay ee dalka aad ku sheegayso muraaqibiintoodu Djibouti joogan muraaqibiinta wararka siinaya ee qarinaya halkan Djibouti joogan safaaradaha joogan safaaradda waxay joogan Addis Ababa ninka joogi waa muraaqib dadka duulimaadka Djibouti ku ah number 1 buu ka yahay maaweel ninka la yiraahdo ee boorka jooga iyo dadkan uu ka keenay gabiile qayb bay ka yihiin ciidamada saraakiisha booliiska ee wax baadhay waa isla iyagi waxa jira aflaan la yiraahdo agent baa la yiraahdaa filimada ninka wax dilay baa baadha ninka wax dilay markuu baadhayo wixii dhacay dambigii dhacay lama helo maadaama dadkan soo duulay ay yihiin cadow kula walaala dad wadanka kula jooga oo dhaqaalihiisii kula cunayo oo haddana cadow kugu ah ma soo heli karaan iyagu wax dhici kara ma dalkani reform buu baahay madaxweyne بكل تقدير واحترام reform buu baahay wax laga qabto waxa jira bari nin wasiira walka telefishinka ka hadlay oo dalkan iskaga bax magaciisa ma xasuusto ducaale baa la oran jiray somewhere ducaale in la oran jiraan malaaynikaas Djibouti waa laga dareeray telefishinada ka daawan jiray ninkaas de ma ahayn kuma eedaamin dadka sawtul cadaab ma ahayn xaq buu kula hadlo naga baxa buu khalaas cid ma dhibaateen cid lama xidhin cid wax loo geystay ma jiro telefishinka ayuu kala hadlo uu iskaga taga dalkani qof walba uu dareeray initiative-kiisa la dareemay waxa looga baxay iminkana dalkiiba loo ammaan laaya oo adiga arkaya boorashi waxa ka dhacay tuugada ka dhacaysa ee wax walba la guranaya meel walba la guranaya oo hargeysa la geenaya waxaan ka codsanayaa madaxweyne in talada dalka aad qaybiso wax naga siiso waayo wadankan waan jecelahay inuu hore u marana waan rabaa sida Rwanda inuu noqdana waan rabaa wax mashaaroon ka rabana ma jirto taasaan ka codsanayaa adiga waxa kale oo rabay inaan ka hadlo awdal state arrinka la yiraahdo awdal state inaan garab gallo weeyaan oo garab joogsano iyo dhulka ay ku nool yihiin dadkaasi degan yihiin
reer baa Soomaaliyeed baa waxay u haystaan ciise iyo samaroon waxay u haystaan xoolo ay xere iyagu ku ooteen oo leeyihiin oo u daaqa oo maalinba kay rabaan iibiyaan iyagu maantana dhulkoodii bay iibinayaan waa dhulkii aan ka nimid weey taladeeda de waxbaan ku leenahay inaan wax ka qabanno halkaas wax ka qabanno waajib bay nagu tahay inaan dagaalka la gallo waajib bay nagu tahay la xoreyno waa dalkeenni arrinkaa awdal state ciise inuu horgalo maaha inaan dabagallo inaan garab horgallaa laynooga baahan yahay wax badan baan ka qabanayaa arrinkaas oo aniga madaxayga ku jira jabuuti waa dal awood leh oo dhaqaale awood leh oo ciidana awood leh diyaaradaha wax duqeeya ayuu leeyahay F-16 buu leeyahay wuxuu leeyahay Apache kuwa la yiraahdo wuxuu leeyahay baardaar diyaaradaha la yiraahdo sidee u dhici kartaa in oday Hargeysa joogi uga soo hanjabo qof kasto uu Jabuuti baan dilay Jabuuti wax ku sameynaya amba waan qarxinayaa halka inaan ku soo qabanaan u baahanaa oo soo qaban koodii ugu weynaaba waa kii waxa lahaa boqor buurmadow boqor been madow waa kii lahaa waan gubaynaa Jabuuti not only isaga dhammaantood waxay dhahaan Jabuuti waan qarxinaynaa odayha odhan caaqilha odhan islaana odhan qofkii hadlaaba Jabuuti buu hadalaya qofkii mas'uul la wareystay wadanku meeshan ay maamulaan kama hadlaan wuxuu ka hadlayaa Muqdisho wuxuu ka hadlayaa Jabuuti way fool xun tahay dadka lagu cunaa waa musuqmaasuq waa kii kale waxaase ka sheekeynaya ka hadli maayaan meeshooda inflationku 1000% ya kama hadlayaan qof kasto la warayso way dadka jecel shicibka jecel in laga hadlo Soomaaliya iyo wadamada jaarka laga hadlo oo iyaga laga hadal qof weydiinaya ma jirto oranaya maxaa dalkeena uga hadli laadiin Soomaaliya idin kama hadasho dawladda Jabuuti idin kama hadasho way 24/7 aad meel kale uga hadlaysan cid oranaysa ma jirto mid kasto siyaasi oo soo fariistay wuxuu ka hadlayaa wadamada jaarka oo caayaya waa flagaadeynaya waxa soo dhan baan soo afjir leh madaxweyne wax badan baad dowranaysa anagu waxba dowran mayno wax walba sida yihiin baanu qabanaynaa munaafaqad ma sameynayno mujaamalad ma sameynayno wadankan waa la badbaadinayaa terrorisna ma soo gali karo terroriska muraaqibiintii baa u joogta Jabuuti cidii qabanaysay baa joogta oo guryahooday joogaan wadan la wareega weeyaan waa too late waqtiga aan ka hadlayno id fijilan noqotay warqadaha soo saaraysan siniin baan ka hadlayaan waxan marka dalkii baa ii baahan maanta aniga Jabuuti baa ii baahan mishaar kama rabo guri kama rabo waxba kama rabo laakiin dalkayga inaan u shaqeeyo oo dadkayga u shaqeeyaan u baahana madaxweyne adanka wasugaya waxa kale oo dhageystay ninka Faysal la yiraahdo oo la garaw waan tagayna waa campaign koodu maaha waxbaan qabanaya waa garaw Faysal oo garaw laba umad ku iman kartaa waxaad ku iman kartaa adigoo lagu qabto oo sidii Soomaali diidka lagu soo xidho oo garaw lagu xidho oo number halka lagu qoro number halka inta magac ma hena waa number maxmuus number baa la yiraahdaa qofka marka la xidho laga qaado sharaftii magac male maxmuusku halka number baa lagu qoraa magaciisa laba yeeriyo maxmuus number baa la yiraahdaa adigoo number leh waad iman kartaa garaw waxaad kaloo garaw iman kartaa adiga oo islaamay adoo toobad keenay oo calanka Soomaaliyeed sita garaw waad iman kartaa labada umbad garaw ku iman kartaa adiga kuwa kale la garaw waan tagayna oo qabsanayna waad riyoonaysaa tii ku dhacday Soomaali diidka umba kugu dhacaysa garaw ma iman kartaa haba yaraatee imaantan aad garaw timaaday waa habeenkii xalayatay hinaasa idan haya Jabuuti keenaysantii Jabuuti say dawladu noqotay oo anagu dawladu noqon weyd annaga dawladda annaga ka horeynay dawlad aqoonsiguna uu naga dambeeyay annaga aqoonsiga naga horeeyay oo annaga ka dambeeyna dhalashada idinku waa soo kala hormarteen idinku qabiil aad macdana dawlad noqotaan oo Soomaaliya caadhan caydaan oo cid walba aflagaadaysan oo wax alla wixii gaala asxaabka u tuntaan waxa jira odaygu markuu islaanta guursado ninku gabadha hadaad guursato hadday waalato kama furanto weligeed adiga qabay hadday waalato lama furo xaaskaagu hadduu waasho uu dhar ka daadiyo
diintu ma furayso adiga ayaa qaba laakiin adigu haddaad waalato oo darka daadiso waa automatic waa laga furaya marka waxaan ku leeyahay Soomaaliya weligeed Soomaali baad ahaanaysaa waad waalateen waxaad ku waalateen inkoo dawladda marka darkii aad daadiseen markaad miyirku idiin soo noqdo Soomaaliya baad ku noqonaysaan xasan sheekh baad hoos sibanaysaan dawladda Soomaaliya taa weyn ogaataa waayo qofku hadduu waasho ma furmo warqadii infisaalkii leedima siinayo waayo ma miyir qabtaanba waali baa idinku dhacday waxaad wadaan waa waali sheenaan jecel lahay axmaarana dhashay hooyaday xabashiya la oran jiray hooyaday oraman la oran jiray barito la oranaysa haba yaraatee Soomaali kama baxaysaan haba yaraatee way waad waalateen qofku markuu miyir qabo ayuu separation raasada dantiinu waxay ku jirtaa dawladda Soomaaliya ayaa idin dana haddaad xabashu tagtaan haddaad Iiraan tagtaan haddaad Yuhuud tagtaan Soomaali baa idinka mas'uula taa waa inaad ogaataa haba yaraatee waa daalaysaan waa daalitaan aad baan idin salaamayaa Soomaaliya mar kale madaxweyne Ismaaciil Margeelle bikulli taqdiir wa ixtiraam dalkeena aanu shaqeeyo raba waxaan socda inaan wax ka qabtaan raba baylaha baa ii muuqata baylaha fara badan baa ii muuqata inaan wax ka qabto oo u baahanahay talada dalka inaan wax ka noqdaan u baahanahay talada inaad igu wareejiso hadday ku suura galayso adoo doorasho qaban inaad igu wareejiso waayo dalka jiritaankiisa ayay dan u tahay inaad talada igu wareejiso amba adoo wasaaradda arrimaha gudaha aniga ii dhiibto si wixii dhaawac ee gaaray dalkani waan wax uga qabto Soomaali aad baan idin salaamayaa idinkana waan sugayaa talo wixii aad ka bixisaan aad baan idin soo salaamayaa